السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشي نصر oo idin leh mar kale ku soo dhawaada sheekadeeni xiisaha badneed qaybteedii shanaad asli iyo cawaale qaybtii afraad aan wax yar dib ugu noqono si dadka maaragtay hadda nagu soo biiray ama sheekada dhageystay maaragtay ay u fahmaan waxa ay noo joogtay oda cawaale oo maaragtay soo waceen hay'adda caruurta maaragtay xanaaneysa ama caruurta qaadato lagu ay ku dhaheen fariin walwal ah ayaa waxa ay naga soo gaartay iskuulka caruurtaada dhigato marka waxaan go'aansaday inaan maaragtay kulan degdeg oo emergency aan idin qabto adiga iyo asli iyo caruurtaba bari 9 subaxnimo ama 3 saac subaxnimo saacada markay tahay xafiiska noocaas address hebel iska soo xaadir yaa Allah cawaale markuu intaas oo maqlay iyo hay'ad caruurta qaadato kulli anaga Soomaaliya nahay maaragtay hay'ad socialka caruurta qaadato waxyaabahan ka aaminsanahayna waa another level telefonkii uu la soo booday wuxuu soo wacay asli walaale maxaad iigu soo sheegi waysay problem kale oo haddana waxa jira oo qarsanay aniga aanan ogeyn waxa ay soo waceen naag ku socota hay'ad caruurta qaadato say wax u jiraan asliye ilaa ilmihi aday kula nool yihiin guriga iskuul ka tagaan maxaad wixii soo kordhaad iigu soo sheegi waysay soo aniga waarid ma ihin ay heelay waxaan ku dhawaa xanaaqsan la yiraahdaa waxaan ku iri furkayba tuurataba adaa problemkaas hooyo aabuu ah adiga dhibaato maanta ilmahayga dacwada ii keenay aniga horta ma ogtaa adiga inaan ku dacweeyay oo waxayba la gashaba macnaa wax yar ay ka fikiraysaa oo maaragtay aad lacagta aaba laga soo jiro intaas oo sano lacagta aabaha aan laga soo jirin ina adiga dacwad ka furo kugu fururtay ma ogtaa ani ma adiga ila soo hadlay camal oo maxaa aniga dacwad iigu furto dhaa intaas oo sanaba waan joogay ma hadda markii maaragtay oo caruurtii dacwad iskuulka problem nagu furaya miyaad adigana asliya problem kala sii furaysaa hadda waxaan rabaa inaan asliya ilmihii wixii qaladaadkii waarid ahaan aan sameeyay bal wixii ilmahaas aan ka qaban karo ama u qaban karo inaan kugu qabto oo ilmahaas aan caawiyo oo maaragtay mas'uuliyadii waaridka aan bari hore gabay aan ka soo baxee walaal dacwadaan aniga ay dacweysay maad iska xirtid maya tirxiri maay zam telefonkii ku demisay markii telefonkii demisay ayaa daqiiqada kadib waxa soo wacay naagtii isla cawaale wacday oo maaragtay ka socotay hay'adda caruurta qaadato ayaa soo wacday waxay tiri haye asli miyaha horena waa ku siiyay fariin waa ku soo diray haddana fariintan waxa waay message-ka address aan ku soo diray bari markay tahay 9 subaxnimo meeshaas address-kaas imaaw cawaalana waan balamiyay caruurtana soo wada la awal moogta ayada waxa lagu yiri waxa la idin dhigayaa kulana la idin ku yeera labadiina markii saas lagu yiri ilmaha soo wad ay wixii tiro ilmaha maxaa laga rabaa waxa la fariinta naga soo gaartay iskuulka waa fariin maaragtay aan u aragnay ilmahan inaan la kulano oo ilmaha waxa loo balamiyay psychology dhakhtar maskaxda oo caruurta la hadlo sidaas darteeda marka sheekadu waxay noqonaysaa ayaa la yiri 3 gees way tiri ada waxa ku dhaama systemka wadankan ay ku nooshahay jiq ka keeni kartaa telefonkii markay iska dhigtay iyadoo walaacsan ayay waxay wacday saaxiibteed samsam aniga samsam qeyrlaya laak u bixiyay dadkii hore qeybihii hore sheekada ula socday waxay tiri samsamee way iska calaacashay ma aha waxa waay hay'adda caruurta qaadata soo daba gashay ilmihii waxa lagu dhahay soo wad biri walaale waxa waa cawaalana hadaawa isla hadalna wuxuu ugu yiri walaale ilmahan waa isla caawinaynaa kiiskan dacwada ay ugu furtay iga xir marka walaale ama cawaale iga saxsan yahay aan dacwadan iska xiraa maadaama hadda kiiska caruurta ugu furan yahay laba dacwad ilaa dacwadaha markii la furo wadamadan maxkamad iyo isdaba jiid iyo waxaan ku dhahay waa la iska laalaaxsho ma fahantaa wiifo camal waxaan ku iri samsam wixii tir maya si u xiraysaa ninka waxaan ku dhahay lacagta lagaaga soo jaraya ilmahaaga intaas ba soo korsaday cunugaaga hadda oo maanta 12 jirka ku oo 13 sano ku maxaa ku dhiman يعني أيوة وحى ماركت أنا قاعد كفكرنا أنت بدن عنق واويناي لكن عنق محوك وينادي مسكح يمنتال كما لقى كوري المها إن عنت الله سيو عنق إسك يرى درلو جري وح معناه الدون كان إكسو كورنيس ملا حتى آخرة حد حق الله فيريو
ilmaha dhinac walba in laga dhiso ayaa maaragtay xaq u leeyihiin xuquuqdaha ay waalidka ay ku leeyihiin waxaa kamid ah ilmaha maaragtay in maskaxdooda iyo caqligooda iyo fikirkooda la dhiso markay saas lagu jiray asli tirnaa waxa iska daa jilaac iska daa asli waa jilcan tahay waxaan ku ninkaan mid kale soo ma ogid ilmaha yar yar oo kale dhalo wuxuu isleeyahay ama laga soo daba galaaye waxaan ku iri waxa iska dayso birina meesha tag ninkaan wada shaqeyntiisa iyo wixiisa mar intaas ba ilmo soo shaqeynaynin ilmeyga ana inta soo korsaday ku dheh waxaan ku dhahay hore u soco anaga ku joogna anaga ku garab taaganahay يعني qofka markuu maskaxdiisa uusan maaragtay intuu meel fariisto marka hore uusan isdajinin oo cuudo bilaysto oo maaragtay maxaa ka qada maxaa ku saxsan oo qof kale fikirkiisa oo ku socdo dhibaatooyinka laftirkiisa u keenayaan sheekada qayb ay ka tahay waayahay tir telefonkii iska dhigtay waxay saacad isgurtaba subaxii waqtiga lagu ballamay ayaa xafiiska la isugu tagay ayagina waxaan ku dhahay naagi inin baa waxaan ku dhahay qol ku xirtay caruurtiin laba naag oo midna maaragtay hay'ad carruurta qaadatay tahay naagna dhakhtar psychology ah qol la galeen waxaan ku iri sheekadii waxa lagu bilaabay asli cawaale wixii iskuulkii laga qoray oo carruurta xataa maaragtay qoraalada ilmaha iskuulka ilmahaasi ku yihiin wixii oo dhan la soo gudbiyay waxa la intaan oo maaragtay fariin ah ay iskuulka carruurtiin dhigato naga soo gaartay sidaas darteed waxaan rabnaa marka adika maadaama adiga intaas oo sano ilmahaaga aadan la nooleen oo meel kale aad degneed oo family kale nolol kale inaad samaysatayna maaragtay systemka ku jirto maxaa sababa inaa maaragtay ilmihiina maaragtay aad maskaxdooda iyo koriishahooda oo maaragtay oo nafeed aad ilaalin waysiin ilmaha dareemayaashooda dareemadooda maxaad u ilaalin waysiin Allah ma ogtiin mas'uuliyadda ka saaran tahay meeshii asli waxay tiri aniga ilmahayga waan koriyaa ilmahayga meeshii xogaa muran ku bilowday waxa la anaga muranadiina iyo maaragtay waxa adika ay dhahaysiin wax macna ah ay noo sameynayaan ma jirto kaliya waxa idinku yeernay inaan idi wargelino psychology-daas carruurta ilmaha lala hadlo wixii markaas ilmahaas u dan ah ayaa meesha anigu u fadhiyaay tir computer-kan noo jeeda ay buuga intaas la wax u wato oo dawladda igu shaqaalaysiisay inaan ilmahaas xuquuqdooda u dagaalamo nasiib darro in ilmahaaga adiga aad dhasho qof kale oo ku yiraahdo xuquuqdooda u dagaalamaya cunugaas macnaha dareenkiisa ilaalinaya taasaa macnaha dhaawac waa qofkaas waalidkaas asigoo nool in qabri la geliyo ayaa u dhaanto waa sida aniga fikirkayga aasna sare ahaan ila taa maadaama aniga aan waarid ahay ilmihii markii la wareystay waxay dhaheen anaga waa cunug wuxuu yiri aniga mararka qaar wiilka weynaay wuxuu yiri anu waxaan isdhahaa mararka qaar inaan nafta iska jaro isdilo ayaan mararka qaar maskaxeedu ku soo dhacdo maadaama labadii qofood labadii waarida adduunkan i keentay ay yihiin laba waarido maaragtay aniga aan muhiim u ahayn aniga iyo walaashay iga yarbo oo yihiin jabsadeenbo inta cunugii markuu ooy ay gabadh yareed ka daba ooysay waxaan ku dhahay labadii naagood naagtii psychology-ga ahayd iyo naagtii waxa ku dhahay hay'ad carruurta qaadi ka socotay way isfiireen buuggii qalinkii isku dadeen banaankii u soo baxeen qolkii waxay soo garaaceen oo maaragtay asli cawaal lagu wareysanayay oo loo yeeray waxaa la dhahay ilmahan si emergency ah waa inaan ku qaadanaa because ilmaha mental ahaan ayay u dhibaataysan yihiin waxay u baahan yihiin therapy in maaragtay dhaqaatiir iyo arrintooda la galay u baahan yihiin marka iskuulku waxyaabahay noo soo gudbiyeen oo anaga aan halis u arkayna halis ka badanaa marka ilmihii la kulana aan aragnay sidaas darteed waxaa leeyahay adiga gurigiina aada ilmahana maarag si akuuda loo qaadana meeshii waxaan ku dhahay asli cawaale baroor oo yihiin mayoy warsaas ma no wal yiri muhiim loo ma tihiin Allah adika muhiim noo ma tihiin muhiim waxa noo ah carruurtaas noloshooda iyo caafimaadkooda iyo inay maaragtay maskax wanaagsan ee maaragtay fikir wanaagsan dad ku dhaqmaayo ilmaha inay gacan ku dhigaan adika laakiin waxa la lahay sida hadda anaga u jeedno maxkamad iyo kiiskiin waa la gudbin doonaa kulley laakiin hadda anaga waxa waaye emergency ilmaha u qaadanayna saas ula socda waxaan ku iraahdaa dacawaali asli qof walba asigoo liicaayo ayuu xafiiska soo baxay ilmihii labadii cunuun wiilka gabadh yaraayna meesha ayaa lagu qaatay sheekadan sababta waxaan ku dhahay ka dambeeyso waxaan rabaa waalidiin badan oo maaragtay u maleeyo markay kala tagaan inay ayaga is dhibaateynayaan dhibaatada inta badan waxay ku dhacdaa carruurta
caruurta ayay ku dhacdaa fariinta aan diray oo sheekadan laga diraayin waxay tahay in maaragtay markaa waari tahay haddii la kala tago iyo haddii la wada joogo hadda waxa waaye dadka kala taga ayay sheekadan xooga saaraysaa in ilmaha si wanaagsan maskax caafimaad qabta lagu koriyo oo hooyada caruurta ku dhashay aad ixtiraamto wiilow gabarey adigana aad ixtiraamto aabaha aad caruurta u dhashay oo aad ku dhiirigeliso inuu ilmaha kula koriyo ilmuhuna cunto iyo dhar kaliya uma baahnay waxay u baahan yihiin waarid oo ka fikiro dulqaada lagaaga baahan yahay especially wadamada aan ku noolnahay ilmaha waxa loo baahan ilgooni in loo yeesho haddii aad kala tagteen sheekada ciwaankeedana waxa waaye cunugaaga ma aadan kala teginaha waaye cunugaaga mar walba cunugaaga ahaanaya soo marka insha Allah dad badan waxaan rajeynayaa maaragtay inay baraarugaan ee hurdada ka kacaan waxaan idin leeyahay inuu qof cad kaleeto oo bini'aadan kale oo cunuga adiga adduunka ah keento oo ku dhaho aniga ayaa kaaga walwal badan aniga ayaa cunugan maaragtay mas'uuliyadiisa iyo wixii dana aqaano qabriga oo gasho ayaa ku dhaanto marka wax iska bedelayaan idin leeyahay meel walba aad joogtiin sheekadana hadda waxa ku dhahay share gareeya commentigiina feedbackiina waa idinka sugayaa waxaan ku dhahay intaas ayay ku eg tahay khayr iyo caafimaad idin rajay meel walba aad joogtiin like iyo commentiga iyo subscribe-tana waxaan ku dhahay xaqiina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.